know it's cause you pack it with the automatics, we gon' send them to heaven. Wait. You from the study, huh? Shake it. She like the way I dance. She like the way I move. She like the way I rock. She like the way I move. And she let it clap for a nigga. And she do it back for a nigga. waanu taaganahay ma fadhiisanaa كفر ساعي ما بصار waxaan ku leenahay horta marka hore Ramadaan Mubaarak والله كريم صاحب هذه يا أصحابته نو هذا السلام عليكم كلهم saaxiibkay mataan oo ilaa iyo programka aan furnay garabkayga ahaa su'aashan hadda ku weydiinaya sidee ba adigu sii diyaar garowdaa isagu san u sii diyaar garowdaa وحاول مطاوة ديارسية عاو حلب العالم أخرين مرة هذا حافظ walaal waxaan ku leeyahay Ramadaan Mubaarak waana ogahay in aad interview-yada aad diidid wareysiyada aad diidid probably 10-15 years wareysi ma bixin inaad iga aqbashay sharaf alla korkaaga ha saaro adiga iyo dhammaan asxaabta magac leh sumcad karaamo ku leh bulshada Soomaalida ee iga yeelay anaa wariyahan hadda nervous baba noqday markaan adiga ku arkay soo dhawow walaalo soo dhawow كل جوا أدنى وقفنا حسنا هاي هوش أودي إيه برنامجك إيو دلالك إيه جودي أجلسين كان كورونا فيروس لقوا وعي جليو ومدة الصومالي اسكت ما دو هل قيس وقرأ أو سكوي ماذا وناجين إيه هرمرك أنا كشقينه والضروري وحيالها النيجاتيف كا إيه دبعتنا إسكدينه قفل بقى صوماليا ولا الكوية جعن قبو regardless. That's beautiful والله waxaan rabay su'aalaan soo diyaariyay waa inaad caawa iiga jawaabtaa haddii aad raalli ka tahay saaxiib raalli ma ka tahay I'll try my best inshallah. badan su'aalo ma soo diyaariyay laakiin waxaan siri number 1 journalist maanta waa inaad saaxiibta little bit of background kaaga intaana journalist noqon maxaad sideeba journalist ku noqotay maanta number 1ka backgroundkayga waxa weeye anigu dadka Soomaalida UK jooga kamid ahay dadkii xilli hore yimid baan ku jiray anigoo yar baan Soomaaliya ka soo tagay oo dawladdii militariga dalka ay hayso baan soo tagay waxaan soo galay Ingiriiska halkaan joogay almost 25 years ka badan aabaan ahay ciyaal teenage maahan qaarkood 22-23 jir ayaan dhalay ma sha Allah waa 11 jir kan ugu weyn waa 22 jir marka oday weyn baan ahay laakiin dadka ma oga oday weyn baan ahay dadka ma oga journalismka miyahow intaana soo gelinin dad ayaa igu dhiirageliyey waxay igu yiraahdeen waxaad ku wanaagsanaan lahayd inaad hawshaas qabatid dabadeedna qoraallo fara badan waxyaalo fara badan akhrintooda dad fara badan oo tashigooda kadib ayaan bilaabay hadda university waxaan la joogaa 11 sano waa TV-gaan ka bilaabay ilaa haatan asagaan joogaa ma jecli inaan guurguuro inkastoo reemiyiinahay oo Soomaalida haba ay guurto haddana qaybtaas kuma jiro university joogaa aad baan ugu faraxsanahay goolkayga iyo ujeedadayda ugu weyn oo soo galay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed laga wacyigeliyo waxa wanaagsan lagaga hadlo oo danta ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto qof kasta oo Soomaaliya ma raali gelin kartid laakiin majority-ga ama dadka inta ugu badan inaad wanaajisid oo aad wanaag kula dhaqantid oo waxa aad awoodid ama aad ku dhaantid ama aad ogtahay u sheegtid more importantly to hold nimanka siyaasiyiinta Soomaalida ah oo badankoodu dad fiican ay yihiin in yar oo xun ay ku jirto oo danaha gaarka leh in accountable loo hayo for the public in laga xisaabtamo oo xatooyada xoolaha dadweyne lagala xisaabtamo hantida ummadda Soomaalida lagala xisaabtamo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo cadaalad darrada iyo qabyaaladda ay wadaan oo ah in adiga oo qualify ah
aan shaqo lagu siinin laakiin la siiyo wasiirka wiilo adeer u yahay shaqo marka in la howlgareeyo oo accountable loo hayo waa daruuri ummadda Soomaaliyeed aad waxaas badankoodu inkastoo dadka Soomaalida ah markii laga hadlayo siyaasi xaafad hebel ay leeyihiin wadani baa tahay markii adeerkii laga hadlayo wuxuu leeyahay tuug baa tahay marka other than that waxa weeyaan dadka Soomaalida way soo dhaweeyeen I'm still 10 sano waa wax yar I'm still a baby I'm still growing and inshallah ta'ala yes su'aasha labadan rabeen aan ku weydiino wax weeye why journalist ma hobbigaaga ahayd ma what inspired you mise waxa iyo yaa ku dayan jirtay ama internationally ha noqdo wariye ama ha noqdo Soomaali ya inspire ku siiyay anigu malihi international wariye ah oo aan ku daydo malihi laakiin waxaan leenahay dad warbaahinta Soomaaliyeed in badan ka soo shaqeynayay oo sharaf iyo kalaamo leh oo aan fursad u yeeshay inaan la sheekaysto inaan la fariisto inaan la shaqeeyo waxaa ka mid ahaa odayaashii dhintay oo kale qaarkood the one orakala wuxuu ahaa number 1 Soomaali wariye ah aniga ceeb bay ku tahay inaan wariye ah markaa magaciisa soo qaadayo Ahmed Xasan Cawka Allah u naxariisto University TV nagala shaqeeyay isku xaafad baan ahayn Maxamed Teer Allah u naxariisto uu dhintay sidii soo kale odayaashaas aan la soo shaqeeyay kuwa nool oo rugcadaayna hadda waa la shaqeeyaa laakiin dadkaan isleeyahay ku yihiin ama waa ku dayataa ama waxa weeye dad ku dayasho mudan dad badan baa jira laakiin haddaan 3 qof ku soo koobo Sheekh Maxamuud Dalmar wariye hore BBC-da nin ahlu diina ahlu sharafa khiyaar ah rugcadaa weeye aan la heli karaynin ninka odayga Allah xifdiyo sidoo kale Aadan Ducaale oo BBC-da hore uga shaqeyn jiray nin saaxiibkay walaalkay Absalaan Hareeri odayaashaas oo hadda jooga reer London nala ah rag waaweyn ah saxaafadda in badan kusoo jiray ayaa waxay yihiin a reference point if you like ta kale can you just name drop ma noo sheegi kartaa royalty-ga ama dadka dignity-ga ummadda Soomaalida ku leeyahay oo aad wareysi ka qaatay dadka kula soconaya ama deer kuna maaka kuna hadda ku daawanayo kuwa gadaalba ka daawanayo few of them waxaan wareysiyo la yeeshay foreign dignity dad ah iyo dad Soomaaliya oo maxaa lahaa siyaasadda Soomaaliya ku jira hadda recently waxaan wareysi ka qaaday madaxweynaha Soomaali galbeed so called dawlad deegaanka laakiin anigu Soomaali galbeed baan u qaadanaa mudane Mustafa Umar baa hadda u dambeeyay wareysi saacadii bar loo soconayay kuwa kale la yeelana jecelaha muddo hadda sanad laga joogo waxaan kaloo wareysi la yeeshay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud nin khiyaar ah oo ahlu sharafa ah ayaa ka mid ah dadka wareysiyada ka qaaday wasiirada ama maxaa la yiraahdaa junior ministersku waa countless laakiin hadda dhinaca kale ka fiirisid dadka ajnabiga wareysiyada ka qaaday waxaa ka mid ah 2 jeer wareysi ka qaaday ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska David Cameron xilli uu ra'iisul wasaare ahaa ra'iisul wasaarihii ku xigay gabadhii la oran jiray Theresa May waxaan kaloo wareysi ka qaaday David ninka la yiraahdo Boris Johnson oo asagu markaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda foreign ministerka Ingiriiska ahaa haatan ra'iisul wasaare ah haatan waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala inaan wareysi kale ka qaadno after samarka laakiin waa sheeko kale iyo dad yow kala fara badan ayaan wareysi ka qaaday markii madaxweyne Mustafa Aktar ayaa waxaad tiri so called dawlad deegaanka anigu Soomaalida galbeed baan u qaadaa laakiin the original title ku waxa weeye Somali state Somalia tami ma deegaan kartaa waxa jira dadka la yiraahdo Oromada dawladda Itoobiya ka tirsan lama yiraahdo dawlad deegaanka Oromada lama yiraahdo xaaladu waa tribe kamid ah qoysaska degan Itoobiya lama dhaho dawlad deegaanka Amxaarada Soomaalida in anigu afkayga ku iraahdo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay waa khalad b waa karaamo darro
saddex waxa weeye dhul ummad Soomaaliyeed baad gudbinaysaa marka anigu waxaan u aqaanaa Soomaali galbeed ingiriiskuna wuxuu yaqaanaa Ogaden laakiin anigu waxaan u aqaanaa Soomaali galbeed dhul Soomaali leedahay Soomaali ka taliso ummadda Soomaaliyeedna ay leedahay and that is basic principle aan rumaysanahay waan ogolahay su'aal kale aan rabay inaan ku weydiiyo cabdixaafido waxa weeye markii aan videogii aan every night wanigana de martibaan soo casumaa xayeysiin sii daayo ayaa feedback bay dadkii ii soo geeyaan dadka taagan cabdixaafid subeerow Soomaalo dhan uma dhaxayso ama kuwa Somaliland maanta dheh ama Puntland dheh ama Soomaaliya dheh ama Jubaland dheh adigu anywhere oo Soomaali degan tahay comment-kan Soomaalidu miyay ku dhaxaysa comment-kan leeyahay uma dhaxayso ninka noo soo qabatay caawa Soomaalidoo dhani uma sibna maxaad oran lahayd dadka aad waxaan ugu faraxsanahay in ay weydiisay su'aal aan weligii la weydiinin waxaa tahay qofkii u horreeyay oo su'aashaas barnaamij toos ila u baxay iga weydiiyay waan ku faraxsanahay thank you walaalo anigu Soomaalida waxaan u aqaanaa ku sheegayaa Soomaalidoo dhan waxaan u aqaanaa hal qoys oo qura ani adigu walaalaanahay kan Baydhabo jooga walaalkeen kan Burco jooga walaalkeen kan Garowe jooga walaalkeen kan Xamar jooga walaalkeen so walaalaha ma kala dooran kartid laakiin su'aashaadu haddii aan si kala kuugu dhigo waxaan u malaynayaa meesha salka ku hayso inay tahay barnaamijyada siyaasadda markaad daadihinaysaan dadka siyaasadda ma u dhaxaysaa mise dhinac baad la jirtaa that is the question hadday sidaas adaa weliyaa anigu waxaan ahay shacab su'aashaada nuxurkeeda halkaas bayskeedu waa halkaas haba yaraatee aniga shakhsi ahaan iyo professional ahaan midnaba iima kala soocno ummadda Soomaaliyeed ninka siyaasiga ah oo Soomaaliga ah hadduu Hargeysa ka soo jeedo uu xil hayo hadduu Garowe ka soo jeedo hadduu Baydhabo ka soo jeedo hadduu Xamar ka soo jeedo hadduu Garowe ka soo jeedo hadduu ka soo jeedo Hirshabeelle anigu ma arka ninkan qoysna uma arka qabiilna uma arko waxaan u arkaa nin haya mas'uuliyad loona baahan yahay in su'aalo la weydiiyo qoysku ka soo jeedan kamalihi ciduu yahay ma kala jecli wuxuu aaminsan yahay ma kala jecli muxuu qabtay muxuu taray muxuu sameeyay intuu xilka hayay and that is all it is markaan waraystay ninka la oran jiray Cabduuli Gaas oo Puntland madaxweynaha ka aan jiray dad baa cabinayo lahaa Cabdixafiid waa nin wadani ah markii aan nin Soomaaliya oo TV-ga live anoo fadhiyo soo wacay oo yidhi waqooyigu waa dad qaadka caabuda aan ka celiyay reer Somaliland waxay lahaayeen Cabdixafiid waa nin wadani oo wanaagsan markii aan waraystay siyaasiyiin koonfur ka soo jeeda waxay lahaayeen waa nin wanaagsan laakiin maalinta adeerka aan waraysto aan weydiiyo hantidan ummadda Soomaaliyeed ay lahayd intaana maqana meeday maxaad waxaan u musuqmaasuq garaysay qofka Soomaaliga wuxuu rabaa inuu dhaho adeerkay kama hadli kartid haddii kale waa xun tahay waxaa caaw kuu sheegaa adiga inta kaleba si kastoo aad u tiraahdaan Cabdixafiidow waa xun tahay ninka siyaasiga waa la wareysanayaa su'aalo hufan baa la weydiinayaa cidda uu yahay iyo qoysku ka soo jeedana waa irrelevant that's beautiful taas waa aad baa u mahadsantahay Cabdixafiid su'aalaha maadaa soo qora saaxiib mise hadda anigiyo mataan de wax ma qorno wixii maskaxdeeda ku soo dhacayo xaganaan dadka unaan ka qoslisiinayo waqti fiican aan la qaadanayo iyo wacyigelin maadaa soo qora saaxiib mise team baa tihiin oo horta so far adiga saaxiibka you doing a good job thank you hawl fiican baa wadaan niyo annagu waxaan ku shaqaynaa team annagu waxaan organization